anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada kusoo koray dee family problem ee waalidkoogu iyagoo kala tegay soo aan qaaday soo caqliyeystay aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tegayeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta kadib laba wiil lah 4 baan habla ku nahay marka hore hooya 6 caruur wada haysay oo aaba kala timiday aaba Itoobiya jiray hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay kadib hooyo 6dii markay haysay marka hore iyada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso laakiin adigu problem jiray dartooda aaba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka hooyana taladii waxay ka dhigtay in la kala qaybiyo oo 3na aaba qaato 3na hooyo qaadato kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6daba wada haysay waxay la hadhay labadii hablood ee waaweynaa iyo inantii ugu yarayd aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanay marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray ma sha Allah si fiican buu soo koriyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaa karo guriga aabahay wuxuu ahaa qof shaqeeyo oo subaxdiina maqan habeenkii 9 habeenimo soo hoyda marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu keligii joogo oo xaasi aabahay guursaday iyo anigi labadii wiil maadaama wiil lahaayeen labadii wiil aaba ka haysan jiray wiilka ugu weyn isagu guriga ma iman jirin inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabo wiilka yaraa aniga guriga kusoo hadnay wiilka yaraana intiisa badan isaga laftirkiisa wiil buu hayaa aabahay wuu la socon jiray aabahay wuu la joog jiray kadib aniga soo hadhay anigi meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi karta waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan bii geeyay iskuul layguma darin waxbarasho kale layguma darin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri lagiyo oo dhan inaa waqtiyada roob ku daayaan inaa tooxyada ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baa soo hoyanaya tobanka habeennimaadii doonto waqtigiyadu habeen madow ah sida meelaha u soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigoo walibana ilmo yaroo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaadhin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanayaa qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa tee qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inay hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waan u sheegay arankii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inan hay aabahay markii hore wuu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya iga soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u imiday hooyadii markaan u imiday hooyadii iyo aabahay heshiiskooda wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin aan waxba ka mooyin oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u imiday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay dib liigu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan ir hooyadii baan rabaa aabay dib gaarigii soo saaray Hargeysa dib u soo noqday hooyadii baan u imiday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku geysay inuu 3 haysto iyadina 3 haysto aan la isku imanin kadib aabaan u tagay waxaan ku dhaabo anigu hooyo rabay inaan la joogo ma rabay inaan gurigaaga joogo iyo xagan way soo diray Hargeysa miday Hargeysa hooyadii markaan u mid hooyadii sideedii bay samaysay oo waxay tiri anigu kuma haynayo maadaama aabaa ku heshiinay inuu 3 haysto anu 3 aan haysanay asu 3 haysto adigu subaxnimadii baa mar labaad la diray oo gaariga la saaray Itoobiya ku noqday aabay baan u tagay aabay waan diiday inaan la joogo waxaan idhi ma joogay xagan anigu waxaan rabaa hooyadii ina hooyadii la geeyo aabahay uu diiday wixii hooyada ku soo celisay 2 jeer oo hore mar dambe lagu diray iska joog
awowgay hooyaday dhalay baan u sheegan ku dhaab awow hooyaa rabaa in la geeyo awowna uu diiday waxaa la sheegay in hooyaday xaafaday deganayd ka guurtay oo meel kala degtay kadib waxaan sameeyay inaan gurigii aabahay Ethiopia oo jooga soo baxsado on anigoo waliba aad u yar oo kala garanaynin dhulka wadanka magaalada deena xagana Soomaaliland tahay xagaasina Ethiopia tahay oo kala garanay gaariga soo raacay xaajid baan dhagada soo raacay Hargeysa mitay hooyadii waan mitay guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxa jirta macluumaad bay hayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaariga markaan ka soo digo inaan Hargeysa imaado inaan gaari iskuulkii magaciisa xasuustaa mugtay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii ba macluumaad ka hayd markaa waqtigan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu in iskuulka joogtay iskuulka hortiisa aan imiday anigoo ilmo yara oo magaalada kala garanaynin inna garanaynin iskuulka agtiisa aan fadhiistay ardaydii baan u sheegan kudi waxaan rabaa gabadha magaca la yiraahdo in iskuulka la iga yeero waa la igu yeeray gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay had markay aragtay way iska qarisay maadaama ay iyadu weyneyd way ogtahay xaalka sida jira waan fadhiyay waxa la igu yiri iskuulka wax laga soo baxayaa 5 galabnimo markaan Hargeysa soo galin waa 1 duurnimo 6 subaxnimo aan ka soo baxay Ethiopia ilaa 5 galabnimo waxaan fadhiyay iskuulka hortiisa waliba anoo ilmo yar aad u yar hatta intaan jiro ma xasuusto waan sugay gabadhii walaashaheed markay ka soo baxday way iska qarisay ardaydii way ku dhaxdhuumatay way iska qarisay anoo meesha sidii 5 galabnimo fadhiyo oo sugaya sileynatiba ku soo baxaysa inantii markay soo baxday ay iska qarisay ardaydii bay sheekay guuri inantii aad sugaysay way tagtay xagee marasaayo wadadaas bas ka raacisay waan ka daba cararay inantii baan u tagay waxaan ku walaal waanige waxaan rabaa gurigii maadaama guriga guurteen garan waayay waan soo baxsaday abinay mooyana gurigiisu gabadhii walaashada way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyadii oo markaas la guursaday oo meero kala haysata saddexdii hablood walaalahayna la joogaan hooyaan u imiday waxaan ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mara rabay inaan aabbo la joogay waxaan rabay inaan adigu la joogo hooyo waxay ku tiri anigii aabbaha go'aan baan gaarnay inaan isuguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabbaha ku noqo aabbaha la joog aniga hay imanin anuu ninka aan guursaday nolol kala samaystay aabahana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu saddexdan kale biilin waayay adiga afar kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho aabaha la garaaco oo aabaha loo sheegay inuu kula joogayaan aabaha la wacay waxa lagu yiri inanta yar soo baxsanaysa waa ilmo yar hayla joogta biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabbo wadiiday wuxuu dhaanu biir ma bixinayo hataa saddexda caruura aad haysatana ku darisida afarka gadhigsina waa alxamdulillah haddaanad ku daraynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga lay saaray Ethiopia lagu celiyay sideedii baa sameeyay wanaamu sugay aabahay iyo reerkii iyo dadkii u dhambeeyay culuubay waan diiday waxaan dhaan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada ee waxaan rabay inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabbahay ka dhaadhiciyo aabbahay u diiday taas wuxuu dhaanu biil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysa mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo ee waxaan rabaa inaan hablaan la joogo haddii kale xataa lagu celinay aabbo inaan halay raaciyo maadaama inaan keligay ahay meesha ku dhibaatooday cidi timaaga hagaajinayn cidi daryeelaynin aabbaayuna gurigii joogay inuu yahay qof subaxdii baxaya وهابين ساعة هابين مسوينه adigu hooyaday mar labaad waxa isku markii dambe waxa isku dayday in aabbahay ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda hablood meesha uga joogno aabbahay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yar soo baxsanaysa
ha joogtay waxbarasho la-aan baa haysee biilka bixi aabbay wuu diiday wuxuu dhaa ma hablaha wada haysanaysaa ama wada isu celinaysaa inantaas adna saddexdaada hayso ana saddexdeedaan haysanayaa waxaa dhacday inaan aamus waayo oon ooyo oon qayliyo oon diido inaa Itoobiya laygu celiyo inaa guriga aabbahay dib laygu celiyo dhibaato fara badan inaan guriga ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leedahay nin kala qabay hooyaday xal kale markay weyday labadii hablood eega waaweynaa baa lay raaciyey oo lagu wuri kaxeeya balidigu oo kasoo dhaadhiciya aabaheed inama aabaheed la joogto ama in aabaheed lasoo diro si waxbarashadii nolosha lagu dabaro aniga iyo labada habloodayda waaweynaa baa Itoobiya ku noqonay guriga aabbahay baa tagnay aabbahay baa u sheegnay waxaan ku nidhi aabbo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo labadii hablood kale waaweynaa baa la socdaa dee aabbo biilna sii aabbahay wuu diiday kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo marka aabbahay iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo ilmaha yara soo baxsanaya ee kolba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa aabbahay wuxuu diiday inuu tanaasulo uu yiraahdo ilmaha yara soo baxsanayso hooyadeedu daa labadu tanaasul waayeen waxa dhacday inaan Itoobiya muddo yar markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaato waan ooyey waan qayliyey wax kasta waan sameeyey hooyo waan u sheegay dee heer waxaan gaadhay xataa haan waanan gaadhay hooyadii rabitaankaan rabay hooyadii darteeda hooyadii haddana wax isku dayday inay aabbay dib ugu qanciso inuu biilka bixiyo aabbay waa lala hadlay waxaa lagu yidhi inanta yaraha joogto bale biilka bixi aabbay wuu diiday hooyadii taladeedu waxay ku soo goysay mar hadduu aabbaha diiday inuu biilka bixiyo inaan anigu guriga kasoo gudin aniga waan diiday inaan aabbahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo dhibaatada ugu daran markaas igu dhacday aabbahay wuu diiday hooyadiina way diiday inaan guriga joogo waxay noqotay inaan igu dhan baa lagu diraya oo Itoobiya lagu diraya ama Hargeysa gal ilma yar baan saacid baan u yaray markaas hooyadii anoo la jooga baa waxaan u sheegay waxaan ku hooyo bal markuu ugu dambeysay aabbahay waa anigii maqashay inuu diido dee markaas ugu dambeysay sidii baa dhacday oo aabbahay baa la wacay waa loo sheegay waxa lagu dhinan tiireed inay soo noqoto way diiday biilka ma siinaysaa guriga ha joogtee bise biilka siin maysid aniguna magaaladan kusii daaya aabbahay wuxuu yidhi anu biil ma siinay hooyadiina waxay tiri hadduuna aabbahay biilka bixinayn anagu ma haynayo dhibaatada ugu darnata markaasay dhacday gurigaan joogaa hooyadii Hargeysaan joogaa meesha ma kala garanayo magaalada ma kala garanayo ilmo yar baan ahay dee faamiligayga kale magaalada degan xataa ma garanayo Hargeysa iyo Itoobiyana dee ma kala garanayo meeshan inay Somaliland tahay meeshaan ka mid inay Itoobiya tahay keliya waxaan garanaya inaan Hargeysa joogo Hargeysa hooyadii joogto hooyadii waan beriyey waan ooyey waan qayliyey waan u sheegay wax ku hooyo kuma noqonayo Itoobiya Hargeysana qof kale kama garanayo oo iyadan u imid soo maxantee faamiliga magaalada degan yahay laakiin ma garanayo waan isku dayna ku qanciyo hooyo laakiin aabbahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo aabbahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taalay buu diiday inuu biilku bixiyo aabbahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu yidhaahdo ilmaha yar iska daa hooyada la joogtay hooyadiina waxay garan weyday inay tiraahdo inanta yare soo baxsanaysa aabeediisa iska daa iskala kaa joogtay waxaa dhacday labadoodiiba markay diideen hooyo habeen shalay oo kale nimid Hargeysa 10 habeenimo weeyaan way timid gurigaan oo fadhiya waxay ku tiri hooyo mad ku noqon aabbaha
أقول ما يكون نقنع حاجتي هذا ما حد سمينا سميس وأقول وحربين هذه كل شيء حتى وحبر شيء قدرين حتى أقول وحبي أنا كعنين حتى بدي ما تدو تهاي ينبي لبحيو وأقول أنت دي يا وحبر شيء لو بعيه وحبر شيء أنا اللي سكده يا أنت أنا اللي سكده كليه تنسك شو قوليه وديت هو واحد تري dhibaatadu badan aabbaabaa keenay markii horena aabbaabaa diiday inaan idin wada haysto iminkana isagaa diiday inuu biilka bixiyo markaa waxaad samayn kartaa inay Itoobiya ku noqotid guriga aabbaha iyo inaad magaalada gasho markaa waan yarahay waan diiday inaan ku noqdo guriga aabbaha magaalada gasho markaa waxaan ku hooyay ma rabo inaan guriga ku noqdo gurigii aabbahay hooyadiina markaa caruur kale dhowr caruur ay dhashay ninkii dambe 3 caruur meelahaas buu dhashay waxaa dhacday habeen waa markaan ku sheegay shalay oo kale Itoobiya ka yimid habeennimadii hooyadii ilaa hadal kalamnimadii waa tan ii sheegtay diyaaranka ilaa hadal waxay samaysoo kale ma jirin oo ahayn diin iska kidhiiso diini guriga saarto hooyadii iyo inuu weyn oo walaashay curadeeda way wada hadleen heshiisku wuxuu noqday in caawa tuma habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaab laga saaro oo la igu dhaw magaalada Galadaba sidii baa dhacday hooyadii iyo gabadhii weynida walaashay hayd way sheekaysteen waxayna ku heshiiyeen in Itoobiya maadaama Itoobiya diiday guriga aabbahay inaan ku noqdo inaan guriga lagu lahaa iska baxsad magaalada iska galo sidii baa dhacday waan iska waa inan walaashay ah oo iyada taweyn toos weeyar ah bay timday oo markaa guriga laga soo saaray may gurigan ku jira iyo waxay ku heshiiyeen in guriga ka saaraan laakiin anu ma ogiyo guriga qol ka mid ah fadhiyaan inantii walaashayd bay timday waxay ku tiri walaalo waaliga diiday in Itoobiya lagu celiyo aabana waa ka diiday inuu biilka bixiyo wax kale oo la sameyn karaa ma jirto oo ahayn inaad maxay dama guriga ka tagto ama inaa berito la subaxda gaariga lagu saaro waxaan ku wari berito la subaxda gaariga la masaaro kama tagiyo Itoobiya kuma qonayo xagana joogaya hooyadii gabadhu noqotay way soo wada hadleen habeennimadii abaaratumarka habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waxay ku tiri dharka ay sidato intaad u qaatay albaabka soo xidho sidii baa dhacday inantii walaashay hadda tii weynid maaha tii yareed waan isku fiicanahay xagina joogtaa inantii baa timday waxay ku tiri walaalo xel kale wala waaye waan ahayn in amba Itoobiya loogu celiyo aminad guriga ka tagto baan ku uri maxaa la sameynayaa markaa waxay ku tiri waa tumankii habeenimo adeeraa guriga imanaya adeer waa ninka hooyo qaba adeeraa guriga imanaya intuun adeer iman una ku arag inakeen dibadda meel buu ku geynayaa waxaan ku xigin tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxay isku dayday inay fahansiiso waxay ku tiri hooyo adeer markii guursanayso waxay ku heshiiyeen 3 caruur inay hayso ee kuma heshiinin inay 4 caruur hayso adiguna dawaan ku soo dhaxdhacday aaban uu diiday inuu biilka ku siiyo marka diina si joogto ma noqonayso meel baan ku soo raadinayaan ku geeyo caawa oo iska seexatid marka dad berito Itoobiya ku noqonayso iyo hataa Hargeysa ku joogso
sidii baa dhacdayo inantii walaashay habeenkii tobanka habeenimo gurigeyga soo kaxaysa waxay ii soo raadisay guri family qof familiga ah oo lii geeyo si aan gurigaas u joogo habeenkii waan xasuustaa ilaa waqti dambe bay nagu qaadatay inaan guri lasoo helo lii geeyo guri baa lii geeyey familiga haddama rabo inaan tiitalka qofka sheego laakiin familiga inantii walaasheed gurigii markay geysay way ka timideen aniga keligii guriga ku soo hadhay dadkii xaafadii lii geeyey baan la hadlay uma sheegin naari ku saatay laakiin waxaan ku uri waan isoo booqday haye baa la idhi gurigii qofkii familigeyga ahaa habeenkii baan la seexday subaxnimadii waxaa laga rabay inaan guriga ku noqo soo maa waxaan ku urigay guriga hooyo ma garanayo dad igu celin lahaydeen xataa guriga hooyo ma garanayo hooyana meeshii ka gurtay ka waran markaa haddaan idinka iskala kin joogo gabadhi way soo dhaweysay si fiican bay la hadashay iska joog bay u tiri iska fadhi haye sidii baan gabadhii gurigeedii kaga mid noqday wala joogto wala joogay gabadhii familigeyga ahayd muddo markaan la joogay ilaa 2 bilood si fiican bay la dhaqmi jirtay markii dambe ay aragtay inuun aabaniga soo wardoonin hooyaniga soo wardoonin aabana Itoobiya joogaa wuxuu moodayay inaan hooyo la joogo maadaama aan Hargeysa joogo hooyana waxay moodaysaa in Itoobiya ku noqday cidina kaamay soo wardoon hooyaniga ma soo wardoonin aabaniga ma soo wardoonin gabadhi way yaabtay waxay ku tiri hooyadaa meeday way joogtay mayna ku soo raadinayn waxaan ku hooyo waxaan ku Itoobiya tagay sidaas ay moodaysaa baan ku oo aabana Itoobiya joogaay dee wuxuu moodayay in hooyo la joogo adigu gabadhi markay aragtay inayna hooyaniga soo wardoonin aabaniga soo wardoonin waxay la dhaqantay saan qof loola dhaqmin heer han gaari xataa inaan anigu caafimaad qaban jirin wadooyinka ku dhaco marka awood yaraan may dee hadal gumaysi qaylo inaa laygu yidhaahdo waxaan sameeye halashaan inaa layla dhaqmo si aan loola dhaqmi karin dee qof bilaadana ilaa goorma noloshaa ku jirtay waxaan ku jiray ilaa intaan kasoo gaadhay 16 sano kadib maxaa xigay dhowr sano gabadhaa la joogay si fiican ilamay dhaqmeen waxbarasho meesha waxbaan baranayaa laakiin waxbarashadaan baranaya waxay ahayd waxbarasho aad marka 16 soo gaadhay aad weynaatay caqliysatay si noloshaa isu bedeshay 16 sano markaan soo gaadhay waxaan isku dayay inaan maxay hayday maadaama wax yaro bartay inaan shaqo raadsto gabadhii gurigeeda la joogay meel waa ka tegi kari waayo waxbarashada yaran tegayo kusoo noqdo si xun bay la dhaqantay gurigiina waa ka tegi kari waayo magaaladiina ma kala garanay oo meel kale u tagoon dee waxaan ma garanayn waxaan isku dayay gabar baan la xiriiray familigeyga ah oo lambarkeeda raadiyey gabadhii baa lambarkeeda la siiyey gabadhii baan la hadlay gabadhii baan u sheegay ku walaal dhibtaasay haysatee kaale gurigeyga kaxee gabadhii baa gurigeyga kaxaysa gabadhii baa meel geysay guri kale oo iyadu deganiyada iyadu joogtay geysay gurigii baan in muddo 2 bilood joogay waa ka tegay qof kale familigaanu tagay qofkii familigaanu la joogay baa shaqo raadsaday markaan weynaada intaasoo sanadood aabba igama soo wardoonin hooyadiina Hargeysa joogtay igama soo wardoonin
noloshaadana adaa iska wata sidaa doonta baad ku wadajiya saxa noloshaana wato dadka familiga dib walba ay geysanayaan waxay ka darnay in Ethiopia la wixiliyo maadaama hanan xagaasna gabadha abayaan isku fiicnay aabiyo hooyo labaduba ma reer iyo qoysas kala samaysteen ha abreer kala samaystay waxbarashada ilaa halkaad ka gaadhay waxbarashada markii hore iskuuliga ma darinba waxa la igu taris madrasada yar yar waxyaabo yar laakiin markii dambe weynaaday baan iskuulka meel fiican ka soo biiray marka adaa iskii masaxida ku aniski adaa iskii ilaa jaamacad waxbarashada ka gaadhay hada jaamacad dhigta waddigata ha jaamacad dhigta waana shaqaysaa waa shaqeeya dawladda u shaqeeya laakiin dhibaatada waxa ugu daran waxa dhacday 4 sanadood ba shaqo raadinay afartaas sano shaqada raadinay meelaan jooga manaysan sidoo kale manaysan bas oo qof familiga baan joogay bas lagama bixinay dar lama iibin jirin waxaan xidhimanaysan xataa markaan shaqada raadinayay maraan wasaaradda arrimaha gudaha shaqo raadinay subaxdii lug baan ku iman jiray wasaaradda doorkiina lug baan kaga tegi jiray shaqadaad raadinaysa maxay ahayd doonaysa wasaaradda ka qabato inaan wasaaradda shaqeeyo maan rabin ee waxaan rabay shaqaan wax ku bartay inaan la siiyo muhiimadda shaqo raadinay waxay ahayd inaan noqdo qof taagan maadaama dhibaato badan ku dhex jiro maxaad salaad markaa qaban kartaa oo wasaaradda ka qaban kartaa waxyaabo fara badan baan qaban karayo iskuulka waan dhiganaya waxna waan bartay computer baan bartay computerka markaan baranayna waxay ka caawiyey nin dawladda shaqo soo doontay computerka isaga ii diray computerka marka hore waxaan u imiday aniguna garanay shaqa dawladeed wax laga qabto kadib waan u sheegay xaaladda waxaan ku dhibtaas haysta saaysaasa jirta waxaan rabaa inaad caawiso isaga igu orada computer soo baro dawladda hadday rabto inaad u shaqayso waa inaad wax garanaysaa kadib sidii baan computer kusoo dhigtay luuqadda ingiriishka soo bartay isaga iga caawinay intaasoo dhan inaan magaciisa sheega ma rabee kadib sidii 4 sanadood baan raadinayay shaqo dawladdu keliya haddana shaqo kama raadinayna meel fara badan meelaha beerafatada shirkadaha adu meelo badan ba shaqo ka raadinay ugu dambeyn alxamdulilah hadda waa shaqo tegay waa shaqeeyaa dawladda waa shaqeeyaa waxbarashadeedii hooyadii iyo aabbahay ma oga heerkan waxbarashada ka gaadhay hadda jaamacadaan dhigtaa dawladda ayaa bixisa ma oga hooyadii iyo waxbarashadeeda heerkii taagsan tahay dawladdaad kale u shaqeysaa dawladdu way fara badan tahay institutionkaad ka tirsan tahay booskaad ka shaqeysa midna la wadaagi kartaa meesha ka shaqeeya la wadaagi karaa waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta inaan ka shaqeeyo oon wasaaradda u shaqo tegana adiga ka mas-uula andara oo adiga ah qofkii iga caawiyey inaan wasaaradda u shaqo tago muddo hadda waxaan jooga 3 sanadooda jaamacadaan dhigtaa maalintan shaqada bilaabay ayay noloshayda dib soo dhisantay alxamdulilah hadda waxbaan bartaa waan shaqeeyaa noloshaydana dib baan usoo dhisay laakiin waxaa jira weli dhalinyar fara badan oo anigay lamid ah dhibaatooyinkaa soo maray wax yar baan ka hadlay oo ma rabo inaan faamil ahaan taabto dhibaatooyinka waxyaabaha qaarkood igu dhacay dhibaatooyinka maanta ay haysta ugu badan waxaa kamid ah inaana faamiliga hooyadii garanayn oo maanta walaashay hooyadii aabbahay dhaleen hadday iga hortimaado isma salaano
dhibaatadana iskarana laakiin hooyaaba dhibaatad ka timid iyaga caruurta aabba u dhalay ayada uu dhalay ama hooyada islaanta kale kadib ay iskurseen iyo kuway hooyo odayga kale u dhashay ma isgaranaysana walaaladiin hooyo kuwii ninka kale u dhashay isma garanayno maan aragba markiisay joogeen laakiin aabba ku xaas kale u dhashay yar baan ka garanaya inta badan baan garanaya hadda intaanan aabbahay la joogin 10 sano ka soo wareegtay 10 sano wixii ka dambeeyay wuxuu dhalay ma garanay hooyadayna caruur haysta laakiin ma garanayo tiradoodan ma garanayo aragtidoodan ma garanayo shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay kamid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga e-dahab